balaaran oo lagu daahfurayay urur cusub oo la magac baxay Somaliland UK Citizen ayaa ka dhacday habeenkii xalay ahaa bariga magaalada London. xafladan ayaa loogu daahfurayay ururkaas oo ah urur cusub oo ku soo biiray saaxadda jaaliyadda reer Somaliland ee qurbajooga ah gaar ahaan wadankan UK. daahfurka ururkan ayaa waxaa ka soo qayb galay madax sare oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee wadankan UK ee loo yaqaano Labourka. safiirka Somaliland u fadhiya UK mudane Cali Aadan Cawaale waxa aan ka maqnayn dhalinyaro iyagu qudhoodu u tartamaya in ay ka qayb galaan doorashooyinka deegaanka. mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladda iftitaaxa Somaliland UK Citizen ayaa ku boorisay dhammaan shacabweynaha reer Somaliland ee mugale ee ku dhaqan UK in ay codkooda ay ka dhiibtaan doorashooyinka deegaanka ee foolka inagu soo haya si aad u heshaan bay dhahdeen wixii aad uga baahan tihiin dowladda iyo deegaankaba. ururkan cusub ee Somaliland UK Citizen ayaa ugu baaqay in dhammaan jaaliyadda reer Somaliland ee aan hore u foodi jirin ay foodka ka qayb galaan. waxa aad isku soo taraya jaaliyadaha reer Somaliland ee ku dhaqan wadankan UK in ay si aad uga qayb galaan doorashooyinka ka dhacaya wadankan UK noocay doonaan baa ha ahaadaan, taasoo faa'iido weyn ay ugu jirto jaaliyadda balaaran ee reer Somaliland ee ku dhaqan wadankan UK iyo Somalilandba. Maxamuud Axmed xarigle TV-ga qaranka Somaliland.